khayr dhamaantiin sida quruxda badan aad uga soo qayb gasheen odayaasha oqaasha dhalinyarada gabdhaha hooyooyinka dhamaantiin waan salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh JDA Jubaland Diaspora Association ayaan member ka ahay oo Kismaayo dhulka u taqaan area Jubaland horey baan u sheegay dadkan Sankaloor degan waa jaaliyad aad iyo aad u weyn waa jaaliyad isku duuban waa jaaliyad hal cod ku wada hadlayso waa dad is aaminsan midnimada ka wada simo weeyaan macnaha garaadkii dad badan baa ka hadlay arrimihiisii kuma laabanayo xalfadan sida quruxda badan u socota marka waxaan rabaa inaan xoogaa yar taabto dadkan dhalinyarada ah walaaladannada oo isku sharaxay qaarkood city councilka iyo school boardka labada nin oo walaalahanada halkan ku jira macnaha isku sharaxay waxay u baahan yihiin caawinaad bay u baahan yihiin annagayna u baahan yihiin xooganaga u baahan yihiin campaign baa jira Afrika wada weedana lacag baa lagu bixin jiray campaign halkan haddii lacag ku bixinin xitaa waqtigiini iyo taamkiini baa loo baahan yahay waqtigiini iyo taamkiini baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay hadda yar walaalkay baa ka hadlay dadka aan baasaboorka lahayn waxyaalo badan bay ka caawin karaan waxa ay ka caawin karaan waxa weeyaan waqtigooda inay geliyaan dhalinyarada iskuulka dhiganaysa high schoolka dhalinyarada jaamacadda dhiganaysa in ay waqti geliyaan dhammaantood campaignkan aad qayb libaax ka qaadatiin nin walba waxqabadkiisana isaga idin sheegi doono wadan dimuqraadi baan joognaa qofka markii uu cod rabo wuxuu sheeganayaa waxa uu rabo waxa uu qabanayo waxa uu bulshada u qabanayo annagu Soomaali baana laakiin dad badan ajnabi baa nala degan oo fara badan oo wadankan aan ugu imaanay naftigoodii baa doorasho naga rabo marka waa inaad ma taqaanaa qofka rabitaankiisa waxa ka weyn waxa uu dadka u qabanayo haddii wuxuu keenay uu naga galo inaan u istaagno oo midnimadana aan muujino xoogna aan siino ayaan idin maartay ayaan idin sheegi lahaa dalka ku cusub ayaan nahay waxaan u baahanahay madax dhaqameedyo aan leenahay laakiin madax siyaasadda noo gasho ayaan sanadkan markii ugu horeysay aan iska soo dhax qabanay laba wiil oo aqoon-yahan ah oo Soomaali ah oo Mareykan ah oo halkan ka hadli doona labadaba mid halka uu fadhiyo Cabdullaahi Kulane aqoon-yahan ganacsade nin kale Xasan Cabdullaahi Yuusuf gadaal fadhiya aqoon-yahan ganacsade labadan nin ayaa noo sharxan midna gudida iskoolada noo galaya midna dawlad goboleedka magaalada noo galaya ama city councilka labadan nin walba oo baasaboor haysta waxaan leeyahay taageer oo codkaadu dhiiba caruurteena iyo mustaqbalkeena iyo waayeelkeena iyo dadkeena ay matalayaan meel walbana iyaga ayaa noo garaacaya waa naga sii horeeyaan dadka baasaboorka gaar ahaan buuxsanina fadlan waxaan leenahay xafiisyadeen imaada waa ka caawinayna waa idin buuxinayna si aad uga qayb qaadatiin waxa waaye Soomaalida waxay dhadaa gurbaan garabka kugu jira ama gacalkaada ku haya nimankaas waa gacalkeena gurbaanka iyaga u dhiibano inaan ku daahamadooda السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله marka koowaad horta waxaan u mahadnaqayaa bulshadan quruxda badan ee halkan isku imaatay inay soo dhaweyso calaamasaarka garaad kulmiye garaad maxamed garaad dool marka ilaahay garaadka hadaayo garaadka shaqadan uu qabanayo kaalmo ayuu u baahan yahay kaalmadaasna bulshada ayay ka imaanaysaa garaadka keligiis wax ma qaban karo marka wax qabadkii garaadka maadaama uu afayeenka meesha maamulaya uu yiri toobiga yaan laga bixin toobiga waxaa ka mid ah garaadka in gacan la siiyo marka istaagaan iskuulka u istaagayo boorkiisa garaadka gacan siistiisa ayay ka mid tahay oo garaadka xilkiisii un baan sii wadaynaa caruurteena iskuulka dhiganaysa haddayna horumar gaarin garaadkii wuu dhacay saa darteed ilmaheenna si ay horumar u gaaraan garaadkii inuu waxaad moodaa inuu xagga iga taageersan yahay
sababta taagnida aan taaganahay arrintaas unbay kordhinaysaa oo bulshadii hadday toosanaato garaadkii guushii uu u baahnaa waa gaaray marka in badan waxaa laga yaabaa waalidiinta halkan jooga inay iskoolada aan aad u tegin anigu principalka dhowr mar baan la kulmay iyo superintendent-ka marka marxalado badan oo iskoolka ka socota ayaan ka warhayaa waxaa dhici karta inaad calaacala fara badan ka qabtaan dhinaca iskoolka laakiin markii haddana aad aragtaan shakhsi u taagan in badan inaydan soo dhaqaaqin si aad shakhsigii xoojin loo siiyo marka waxaan idinka codsanayaa si calaacallaha fara badan ee iskoolada nooga haysta ay u dhammaadaan inaad nagu dartaan dadka go'aamada gaaraya iskoolada sida loo maamulo oo garaadka aan kor u qaadno marka waan taaganahay waxaana u baahanahay inaana taageertaan oo iskoolada aan ka muujinno inaan bulshada ka mid nahay dad la wato un yaana noqonine dad wax wata aynu noqono wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما تسنتين وحان مهب الله رنوعي ليا dadkii qabanqaabiyey xafladan weyn waxaan mahad labaad u celinayaa dadka ka soo qayb galay anoo ka bilaabaya hooyooyinka gabdhaha dumarka cuqaasha salaadiinta iyo garaadyadii meeshaan ka hadlay rag badan oo asxaabnahay oo dhalinyaro isla ahayn oo aanan ogeyn inay ugaasi yihiin baa jira marka arrintaasna waa arrin nagu cusub baata laftigeeda laakiin aad baan usoo dhaweynaya laftigeeda xafladdan aan isugu imaanay inaan ku soo dhaweyno garaadka garaad kulmiye garaad maxamed garaad xirsi garaad wilwaal aad baan usoo dhaweynaynaa wax yar baan rabaa inaan wax yar jagadan dhaqanka iyo hoggaanka dhaqanka aan ka idhaahdo diinta shareecada islaamku waxyaalaha ay ka tiri waxaad ogtihiin nabiga sal alla alay wasalam markii uu ka soo tegay maka ee uu madiino yimid wuxuu ugu yimid laba qabiil oo dirirsan oo 40 sano dirirayay oo la yidhaahdo aws iyo khasraj labadaa qabiil waxaa kale hogaaminaya laba ugaas labadaa ugaas waxaa la yidhaahdaa sacad bin cubaad iyo sacad bin cubaadale waxay ahaayeen laba ugaas oo labadaa qabiil reer aws iyo reer khasraj nabiga sal ly slam markuu soo haajiray oo soo qaxay oo madiino yimid waa labada nin oo soo dhaweysay wey marka nabiga sal lla alay wasalam wuxuu ku xurmeeyey haddaad garanaysaan suldaannimadoodii inay yihiin hoggaankii dhaqanka ee qabiilka nabiga sal ly slam xadiis buu wuxuu ku yidhi khiyaarakum fi ljaahiliya khiyaarakum fi lislaam dadkii jaahiliga xilligii lagu jiray islaamka ka hor odayaasha idin ahaya salaadiinta ayaa markaa islaanteen kadibna salaadiintoodii iyo nabadoonadoodii iyo cuqaashooda idin ahaantood marka anigu waxaan u taaganahay magaaladan waad ogtihiin dhibaatada magaalada nagu haysata wax taraa kuma lihin hoggaanka magaalada iyo hoggaanka iskuulka sida xasan cabdullaahi ba sheegay hoggaanka magaalada waxaa nagaga maqan xagga ganacsiga xagga infrastructure-ka xagga housing-ka marka waxaan idinka rabaa walaalayaal waxaan u taaganahay November 4 degmada la yiraahdo magaalada la yiraahdo St Cloud waadka first waad la yiraahdo ayaan u taaganahay inta badan Soomaalidu halkaas degan tahay waxaan rabaa inaad soo baxdaan oo codaysaan oo ay kaalmaysaan oo aad noqotaan dadka volunteer-ka u soo baxa inay qabsadaan masiirkooda ay qabsadaan marka waxa weeye qof kaligiis waxba ma tari karo waxay u fiican tahay ilmihiina idinka idin fiican tahay inaad dadka dhex gashaan oo shaqooyin fiican ka heshaan oo waxbarasho fiican ka heshaan oo development fiican ka heshaan oo aad ku nagaataan meesha guryo fiican ka heshaan marka intaasaan u taaganahay waxaan idinka rabaa idinka iska leh inaad u istaagtaan waa ka baxay waa